خوف عنا الألارم أسارتي مركو حان إلهي وحان تليفون كان صوتا مقادنا ومداسه إلى الليل كغسوك إلهي باتاي بري تليفون كهرباء أو عد والله وبلا وقول أرنيا وتجابنا موتاي يا أديك مالين تان إيري مالين تيدي كحكتي بريان كهرباء والله مالين دورنا بيا أبتيو السعودة تليفون كي كان gabadhan arooskeedii ayay waxay dadka codsatay in stageka loo baneeyo heestii laandheerim iyo daayad daaratay oo cadaarada adduunka ay dhigtay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحبتي دقالك واحد نرجينا عندكم عفمات خمالتين انت مقالك السنة aadku daaw doontaan ugu horreyn ba update-keena soo oo subscribe soo kale muuqaalka la garay aad iyo aad ayaa maasantiin waayahay sidaad muuqaalka sare ku saarteen muuqaalka sababtooda waa dhowr qodob laakiin waxa ugu weyn arinta wari Maxamed Qadar oo muuqaal oo soo duubay dad badan oo Soomaali ah aad iyo aad meel gaar ah ka taabtay qodobka labaad oo ah maalqabeenkii ama maalqabeenadii sheegay inay soo raadinayaan markabkii ku burburay 900 iyo 12 badda ayaa dhamaantoodba geeriyooday iyo gabar Soomaaliyeed oo arooskeeda shidatay waa muuqaalkeen labaad ama muuqaalkeen barqadimo soo dhawaada wari Maxamed Qadar ayaa hadda wuxuu qabsaday baraha bulshada hal uu sheegay kadib markii hadalkaasi uu dhiirigeliyay dad badan oo nolosha ka leh mustaqbal aad iyo aad u weyn waliga tan nolosha ka leedahay mustaqbal haas dhiibin Maxamed Qadar dawo wuxuu ka sheekeynayaa before into YouTube-ka u kala kicin oo soo wari weyn noqonin oo san lacag sameeynin ayaa waxa uu leeyahay sanadii 2009 meelaha anoo yar oo social media soo galayo ila ninkan warinimo wuxuu ku bilaabay 2011 meelaha waxa uu leeyahay xilligaasi mobile fiican ma haysan mobile maysan oo mobile number ma haysan salaadan wuxuu leeyahay wax ii ciyaaro salaad subax iyo waliba salaatul leylka markaas wuxuu leeyahay ilaahay waxaan ka toogay ilaahay waxaan dhahay saacada rist aan wato ima kicin kartee allo mobile isahal subaxii wuxuu leeyahay nin adeerkii ayaa mobilkii aan ilaahay ka toogay ii keen wuxuu leeyahay kadibna de social media soo gal YouTube-ka u kala kacay lacag uu sameeyay marka waliga noloshan step by step alla ku tiirsano alla ta ku tiirsan tahay waad alla ku xiran tahay ogow meel waa gaaraysa bal muuqaalkaas la daawada halkii qaaliga ahaw hal mar muuqaalkan ila daawo طبيعي وهذا واسمه هذا وحده دنيا لكن waxay ahayd maqsadka ugu weyn telefoonka aan qaadanay ma ahayn jacayl ku amooray ma ahayn saaxiibadina kullu baashaalna ma ahayn laakiin waxay ahayd salaada subaxeed ba leelka baan wixii saqabay salaatul leelka wixii saqabay inaan u dugto sidaas daraad waxa ma taqaan waxaan ri wax leelka ka kiciyo Allah ilma hayst saacadan oo kaasida jirjir dhiid kuma kicinaysa ma kici karto waa sax inuu mobile ku ficnaan la alarm asarati marka waxaan ilaahay waxaan telefoonkan sababta u qaadanay midaase ila leelka ka soo kacay إلهي باتاي بري تليفون كهرباء أو عد والله وبلا وقول أرنيا وتجابنا موتاي يا أديك مالين تان إيري مالين تيدي كحكتي بريان كهرباء والله مالين دورنا بيا أبتيو السعودة تليفون كي كان فهمتي اسمع الله هنا والممكن كرام مركا وحمر ولا يا موتيفيشن ونقولنا وحنا متخن عني قلنا يرد وحن بلا يا هاي أصحابي هذا دي أركي سمانت وحير إن نقول يستأيو لما ضاقف محمد قدر كحرية سلا هاي أصلا أركاس إلهي ومن عدد لا هاي من على هاي استمانت وحي كدن بيسا إن إله كتيرسنادي واكا وحوليها أو عد والله ودار تعتا وحوليها والله بالله والصح وأرين بينا ما بقى أخبار انتاس كذب وحوليها أذيركي والصعودة أيا موبيلكي إي كيرين الدنيا واساس مركا الله تا كتيرسنتاي وليا مقول دريسانيست حدنا أجدين وانين وين أو يوتيوبر oo maanta u kala kacsanta magaalkiisa oo lacag YouTube ka sameeyo oo noloshiisa dhan halkaas ku tiirsantaa marka alla ku tiirsano Maxamed Qadar dad badan oo Soomaali baa ka falceli muuqaalka isaga qalbigu ka inay qofka u kala kacdo inuu qariyo maaha meelihii uu soo maray jabkii uu soo maray marka muuqaalkan sida u jeedo waxa kuma ka bixiyeen 5800 almost 6000 oo dad ah ayuu ku dhawayaa muuqaalkan marka Maxamed Qadar waxa leeyahay brada hore u soco jabba soo martay dibata soo martay heer wuxuu gaaray mobile uu iibsaday hadda waa mobile uu iibsaday duruuf xiligaas ku jira darteed marka hadda uu ka bixi u jeedin adduunka waa saas alla ku tiirsanow adigana dadaal oo hadhiin kaliya alla ku tiirsan meelaas ka jiifan alla wuxuu dhahay dadaal anigana waa kula jira waayahay qodobka labaad waxa jira kuwa maalqabeen ah oo 5 qof ka kooban lacag leh oo dhew waxa soo raadinayna markab 912 ku burburay badda oo ku dhintay ku dhawaad 1000 ruux ayaa haraagis soo raadinayna aad moogtay gaalada markay lacagta ka badato calooshii weynaato ay waayaan wax ay qabtaan naftooda dilayaan aad maalqabeen ahay meel iska fadhiistaan waxay dhaheen no jaara markab qaali ah oo qofkii $250,000 laga qaad
qofkii saacadii ris waayeen markaas ay badda galeen markabka raadino ayaga la waayay markii ugu dambeey waa baqteen amba geeriyoodeen waxa ku jira hal nin oo islaam ah oo Iraq u dhashtay meelaha Carabaha oo markabka la ijaaro wax ka lahaa inta kale gaal ay ahaayeen maal qabeenay ahaayeen ninka ugu yar wuxuu lahaa 1 bilyan oo dollar lacag ah ayuu lahaa ninka ugu lacagta yar waay inta kale lacag badan ay marka gaaladan hadee mar qooqaan adi lacag yeeshtaan waxay qabtaan waayaan naftooda dilayaan had dadka maxaa ka waale maxaa baddaas galiye badda maxaa ku tuuray ilaa dad lacag leh wax kama maqna maanta iimaan male ada mugti islaamnimada iimaan is dheeriya waay hadaa mar qof islaam ah alxamdulillah iimaan alle lacagtaas ay haystaan gaalada hadoo qof islaam haysta laha qofka islaamka alxamdulillah inta wax ka maqnay ay isdaqaysa laha laakiin gaalka markuu lacag haysto wuxuu ku fikirayaa lacag inuu sameeyo iimaan male marna wasma dhahay inta ku filanta wuxuu ku fikirayaa bangiga buuxi bangiga lacag ku shub bangiga saan ku sameey ayuu ku fikirayaa marka waa la soo xaqiijiyay geeridooda 12 saac ka hor ayaa la xaqiijiyay inay gaaladaas dhamaadeen oo ay badda ee laqdeen marka taas tusaale lagu qaato marka hada qof nolosha horumarka gaar taas oo kale ugu dhicin alla ku shukri oo alxamdulillah ilaahay okay qofka ugu dambeey maalmahan waxa soo badanayo dumarka guursanayo oo heestan oo laandernimo ida daaranayo gabar kasto guursanayso sanadaas loo galay waxay leedahay stage-ki baneeya heestas idaar nacabkii yaa rabnaa dilo markaas gabadhii waxay garbaashay dadkii caawinta ka leexi jirtay yab hada gabar Soomaaliyeed ayaa waxay leedahay halii baneeya stage-ka maalinta arooskeeda kaliya waxay leedahay nacab liigu kari waa cadowgeeg waa tuurtay war yaa la dagaalamaysa challenge-gan maalmahan gabdhaha guursanaya dhan way sameynayaan anigu ma aqaan sababta gabar kasto guursanayso maalmahan challenge-gan way sameynayaan challenge-gan waxa ka dhigtay mid soo jireen meela daawada gabadhan gabadhii ugu dambeysay ee arooskeeda heestan loo daar stage-ka kaliya taa loo firaaqay haye kaliya waa ajaayib haye haye ajaayib dumarkii waa waashteen maalmahan gabar kasta waxay leedahay heestan ii daara cadowga iska tiirina inta agroobka dadkii igu soo daadiyay ama faaraxyaasha igu soo daadiyay ama dadkii dagaalka la kala iska tiirina haye haye stage kaliya waay ajaayib ajaayib waxaa jira waxa la yiraahdo body language oo qofka jirka luqada jirka cadeynaya qofka xaaladda ku sugay qofta qof ciilan waay qof ciil haayo waa sida dareemayo حليمو يستعمل هيه استيج واحد عمرته وقفت كل قد واي عجايب عجايب أنا حديك رسام والواي دمرك واوشتن gabarka suxeelada stage ifraaqaya amirtay cadowga iska tiiriye war cadowgan aadan lahayn before intaadan guursan hadda aad guursatay aan leedihiin xaliimooyinka noo sheega cadowgaas magaciis ya halkaas ku soo gabeynaa insha Allah muuqaalkan labaad waxay noo bar muuqaalka doornimo waxa kale la comment arintayda bye bye